السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت إنه حرن إذا كان بعمل كستوجتان وحد لنا هاي وقت بعدين وعنا هذا كسر دوّادة برنامج جار وأنا كجهل لأنه كل شهر وهو نفسنا عرورته إيو عقبة ده لسوق البنات وحل كرتان كذا اللي بيجرو ما هذا كجا برنامج كعاوة حمرت يبقى دكتور أبشر عمر وإسلام كان كهول كله مقالة لندن. دكتور أبشر كسر دواء جنال كان شرف official channel وأنا كاجا مهد علنا وقت كاجا خالقة. دي هذا يا أمه سنت هاي سيدا شرفت له وأنا كجرا عيسو دويتي شكري. واتهاي دكتور إن عرورة مركي دشان مرحلة كل دون أي صومران وحين كبلا بتاع كورين شهود مركي دشان ميزان كي كل دشان. دكتور مركي هو روح الربع إن سجود نوجد المرتد كدمنا سؤالها كلا وأهنا كم كويان كويديو. أوكي. إن سيدا الله سعتيد إن عرورته واحد دشان after سجال بلاد qaar ka mid aan maamaray ka soo hormaraan markay dhashaan kale normally dadka magaalooyinka jooga magaalada ku dhashaan dhakhtar ayaa caawiya hooyada hadhowna waxaa la wareega cunugii markuu banaanka soo baxo dhakhtar la yiraahdo pediatrician ama neonatologist la dhaho kaas oo check gareynaya cunugii oo dhan ka bilaabaya cunug inuu neefsanayo ooynayo oo hadii ka soo baxaysa calaamad fiican ay tahay inuu cunugii uu nool yahay fiican yahay ee cadeynayso wax abgar la dhaho oo cabiraad ah ayaa jiro abgarka 10 haduu yahay waa muruqiisa oohintiisa dhaqaaqiisa waxaasna waa la cabirayaa dhiiga laga qaadaa waa la jagareynaya dhacaan oo ka mid tahay thyroidkiisa iyo geneticada iyo waxyaabo qaarkood inuu qabo oo kala ayaa lugta ayaa laga qaadaa dhacaan daaragteen cunugii marka waxa la wareegaya pediatricianka marka topic-ada maanta pediatrician oo ah dhakhtarka caruurta ayaa iskala aniga ma ihi laakiin waan cover gareynina caawa kadib cunugii waxa uu bilaabanaysa maxaan ku dhahaa in hooyadiisa lagu soo celiyo breastfeeding oo galo macnaa naas la siiyo meeshaasuu ka bilaabo tartiibna koriinkii uu bilowdo ilaa uu maxaan ku dhahaa waxaan dhihi karnaa uu kasoo qaan gaarayo marka laga hadlayo Soomaaliya ama wadamada muslimiinta 15 marka inta la joogana 18 ayaa markaas wuxuu dhaxgalaya dadka weyn dhaxgalaya intaas inta u dhaxaysa ayaa wuxuu dhex maraya waxyaabo kala duwan dhex maraya marka su'aalaha insha Allah ready waa إن شاء الله تطور إن عرورته مركز دشان قاربة سيدان وجنهاي وحيكون دشان ميزان وناكسن قار وحيكون دشان ميزان هوسية دخاتيرته مركز قار وحيكون طلع إن المية عانا لو قدر أو ناس كهو يدو كلا كوفر جرين كرين أما بباهتري كرين ميزان يريد دبعته بدن أي والدين تكيسته سيدو كلا عنا حمدة أيانا قيب كا تطور أرمها سي هو يدو أو معركتي مروجة أما والدين تبع عنده murugo gaar ayay ku haysaa cunuga markuu cunadiisii ma aragtay cunadiid yahay miisaankiisii sidii la rabay uu ka hooseeyo waalidka maxaa la gudboon horta marka cunuga oo yaraanta uu ku dhalanayo ama sida aad sheegtay laba aan u kala saarno su'aashaada qaybta ugu horeysa yaraanta uu ku dhalanayo cunuga sida aad la socodsi wadamada oo hadda Europe ama America horumaray haddii ay joogaan hooyada waa la socdaa bilooyin kasta iskaana la saaraa hadduu yar yahay waa la tariyaa nutritionkii cuntada qaadan lahayd wixii sameyn lahayd waa la siiyaa vitaminaadkii waxyaabaha ka maqanna waa loo kordhiyaa si miisaanka cunuga uu soo weynaado bilcakisna way dhici kartaa mararka qaarkood inuu cunug ka weynaado 4 kiilo oo kale uu gaaro ayaa dhici karta haddii hooyada sokor ay qabto oo kale ama maxaan ku dhahaa metabolic disorder ay jiraan uu imaan karaya marka ka soo tagno meeshaas macnaha hooyada markaas dhaqaatiirta gacanta ku hayo oo mar walba fiirinaya inta ay urka ay leedahay ayaa mas'uul ka ah oo u sheegaya in cunuga yar yahay iyo in kale miisaankiisa wixii kula ayaga u sheegaya ayagana la talinaya ayagana siinaya vitaminaad ama wixii loogu talagalay oo markaas ay isleeyin uu ka maqan yahay marka u soo noqono caruurta kale oo caadi marka cunugii uu ku bilaabo cunto cunid 6 bilood soo dhaafo ama 6 bilood soo gaaro oo cuntadii uu bilaabaysid ama uu soo koraayo ay caruurtaas ayaan ka hadlaynaa ilaa iyo wixii ka weyn waxa mararka qaarkood ay la kulmi karaan
inay cuntada kaa diidaan caruurta inay cuntada diidaan sidii la rabay aysan kaaga qaadanin ama waxa dhici karto in cunugiisu u fiicna cunto ku cunayay oo hal mar soo jeesanayo cuntadii dhan uu ka go'ayo marka waxyaabo ayaa sababi kara oo keeni kara in ay arrintan dhacdo waxyaabahaas ayaa waxay kala yihiin laba nooc wax la taaban karo physical ah sida cunugoo cudur ku dhacay ama jiraday ama hargab ha ku dhaco ama gastroenteritis ha ku dhaco ama infection ha ku dhaco any infection ama any wax uu keeno wax la taaban kara ayaa jiro that's why ama caloosha bacteria ka gashay sabab reason oo la taaban kara ayaa jiro oo cunuga uu saas u noqonayo mararka qaarkoodna hooyada aysan fududeen inay dhaqso hore ka fahamto in cunugan ay wax ka halaysan yihiin midda kalena psychological factor ayaa jiro nafsiyan anaga aad uma qiimeyno laakiin waa very important cunuga sida qofka weyn ayuu wax u dareemaa psychological ma hadlaayo qaar ka mid ah ma expression ma samayn karaan ma sheegi karaan laakiin wixii qof weyn dareemaya ayay dareemayaan ama ka daranba ay dareemayaan for example waxyaabahaas marka psychological cunuga u keenaya inay cuntada uu ka go'aan wax uu diido oo kale for example haddii waalidka isdagaalsan yahay haddii waalidka kala tagaan oo uu buuqaas uu la kulmo xitaa isaga oo yar oo aan aqligiisa uusan gaarsiisanin trauma ayaa soo gaaraya waxaa imaanaysa adiga ma ogid laakiin waxaa imaanaysa cunugii in macnaa influence brainkiisa ay ku samayso habkaas uu macnaa cuntadii kaaga go'o cunuga stress uu ku dhacaa sidii dadka waaweyn hala yaabin waa wax caadi ah for example cunugii oo iskool bilaaba ama iskool aadaya oo yar gacanta la qabanayo la geynayo walwala u bilaabanayo hooyadiisu ka fogaanaa markaas hooyadii uu ka fogaanayo markaasaa waxa u bilaabanaysa xoogaa oo walwal ah xagga iskuulka ha noqoto ama marka la geynayo nursery ha noqoto markaas oo kale asagana wuxuu kaa bilaabayaa inuu kaa diido ama si uu noqdo cunuga sidii aadan ku ogeyn cuntadii sidii la rabay oosan kaa qaadanayn waxyaabaha kale oo keeni kara xataa guri marka laga guuro guri kale loo guuro cusub sida dadka dhan oo stress ugu dhaca cunuga si laftirkiisa influence ay ku yeelanee laakiin anaga ma ogeyn mafaantay ma ka warhayno marka waxyaabaha u keeni karo in maxaan ku dhahaa waxa jirto cunuga haddii uu qabo ama reflex uu qabo acid uu ku soo kaco gastric uu ku dhaca ciyaalka laftirkooda haddii reflex laftirkeedu ku dhaco appetite-kiisa uu yaraanayo cunidii wuu kaa diidayaa qaar ka mid ah way ku dhashaanba oo reflexadaas waa laga daaweeyaa difficult yaraantooday kuwaas ku bilaabataa ayagoo yareebja oo aysan cuntadii kaa qaadan ama caanihii intii la rabay ama soo mantagay waxyaabahaas ay la kulmayaan psychological macnaha waxaa jirto ciyaal ka mid ah oo caloosha macnaha aysan musqusha tegaynin constipation hadduu ku dhaco ciyaalkaas oo kale ayagana cuntadii hal marka jarayaan because calooshii musqushii la rabay ma tagayso sidii la rabay lama noqonayo marka calooshii u taagan kaas oo kalena appetite-kii xoogaa hoos u dhacaya marka waxyaabo fara badan ayaa keeni karo maxaan ku dhahaa in waxyaabo abnormal ku dhaco waxaa jira laakiin cudurro oo gaar ah oo waaweyn oo ku dhaco kuwaas maanta detail uma galayna bulimia xagga nerviska ay ka socdaan oo teenage-ka ay aad ugu badan yihiin marka aad sii socotid ay ku dhacayaan cuntadii inay ka go'aan masawirkooda oo isheeg cayilnaan iyo waxyaabahaas buli markii lagu sameeyey ay ka go'ayaan kaasna waa gooni cudurro ayaa jiro oo ku dhaco ayaa jiri kara marka labadaas qaybood ayaa cunuga u keeni karta in uu cuntadii kaa diido oo macnaha sidii la rabay uusan kaga qaadan ama aad istiraadid cunuga sidii hore aan ku ogaa ma aha aad istiraadid sababahaas ayaa keeni kara aan kuu sheegay kuwana fisika ah cudurro ku dhacay oo rasmi ah adiga aadan xataa garanaynin ama hargab iyo waa ku arkaysaa ama qumanka oo barara ama infection chest kaga dhaca ama kaadida xataa infection hadduu kaga dhaca oo habeenkii sariirta qoyaya waxyaaba qaarkood waxay keenayaan inay qasaan cunuga kuwana psychological waaye oo sida hadda aan kuu sheegay stresska uu ku dhacaa iskoolka la aadayo waalidka oo isdagaalo guriga oo laga guuro waxyaaba fara badan ambientahan environment sida anaga stress soo qabta ayuu ayagana u qabtaa oo u influence saarayn karaa waa gartay su'aal waxaan rabaa oo daba socda quumanka xaggeeda ah caruuro yar yar oo badan ayaa waxaan ku aragnaa qurbaha ilaa wadankii haddana waa ay ka jiraan
dabcan inay dalqadii tahay in kale ma garan karno waxaa la yidhahdaa cad bay ku leeyihiin sanka hilib yar baa laga jaraa operation fudud bay galaan caruurahaas marka titore arrintaasi ma dhaxal baa maxay salka ku haysaa caruurahaas operationada iyagoo yaryar oo 2 sano iyo wixii ka sarreey galaan waxaa jiro caruur oo ku dhaco laba cudurada ENT yaa la isku dhahaa waa sanka dhuunta inta qaabilsan oo dhan dhaqaatiirtaas ayaa qala mararka qaarna waxaa dhacdo tonsillaha ama qumanka ayaa recurrent infection fara badan ku soo dhacay markii immune systemka difaaca jirkiisa uu very low yahay uu hooseeyo marka uu ku soo noqnoqdaa midda kale oo ase very important ah hadda caruurta markay dhashaan ba vitamin D waa lagu bilaabaa sida dawladdu soo sheegtay awal lama ogeyn vitamin D kana immune systemka difaaca ayuu kor u qaadaa hadda aragtun ku soo noqnoqonayo ama tiredness daal iyo waxaas infection ku soo noqnoqonayo badana kaasa loogu dadaalaa qumanka marka waxa la jaraa marka ay gaaraan 7 sano ay gaaraan kan adiga aad sheegaysid waa ciyaalka yaryariiska ee neefta ku xiranta adenoid wax la dhahayo ayaa jiro qanjiro ayaa jiraan oo ku yaala sanka gadaashiisa iyo meeshaas oo dhan kuwaas ayaa waxa keeni karaan inay block ay noqdaan ama hilib inuu sanki uu ka soo baxo oo cunugi uu neefsan karin kuwaas waa laga baqaaya in saturationka oxygenki uu hoos u dhaco neefta ay ku dhegto kuwaas waa kuwa lagu degdegayo oo laga qalaya ama laga bixinayo ha noqoto bolib oo hilibka ka soo baxa sanka ha noqoto adenoid wax la dhaho qanjiro yaryar oo ku yaalaan sanka gadaashiisa ha noqoto kuwaas laga saara waxaan looga baqayaa in oxygenta jirka galaysa ku xiranto oo hadhow dhibaato u gaaro ilaa xataa brain damage ama uu dhinta ayaa dhici karta that's why loo sameynaya marka laba nooc waa qaliinkaas midna waxaa la qalaa tonsillaha 7 sano markay gaaraan because wuxuu soo saaraa difaac jirku ka qayb qaataa waa gartay ditore adigoo aad u mahadsan ditore abshir su'aalaha maadaama oo koriinshaha caruurta iyo uu qoseeyo su'aasha xigta ku weydiinaa waxay tahay miisaan yaridu waa ka soo hadalnay iyo marka maxaa ka caawin kara caruurta miisaanka yar daawooyin abateedka u furo waalidiintu aad bay u walaalaha arrintaas ka horta haddii cunuga uu soconayo dhaqdhaqaaqayo waxay leeyihiin weliga ha ku qaylinin hana ku qasbin hana dhihin saxankan noodan dhamaynin meeshan kama kacaysid waxyaabahaas waxay keenayaan impact negative cunugii shoogu kaa galaya ama sii kasii daraya xaaladda waxay leeyihiin cunuga waa inaad saasabtid waa inaad cayaarsiisid laba shayba inaad samaysid cuntada hal noocoo testi ayna ugu bilowdid radhan kulli hal mar has ugu darin radhan oo markaas asaga ka heli jiray favorite ah ugu bilow midda kalena sasab la cayaarsii markaa cuntada aad samaynaysidna sida waxa kula markaad jarjaraysid agtaada keen hooyo kanaan samaynaa ha kula karkariyo oo kale kulama karinayo laakiin tus waxa aad samaynayso waxa abuuraysaa kalsooni zaa'ida abuure wajeclaysana cusbadiga gacanta inta u saartid aad leedahay adigoo ka taxadaraya dabkana wax yar ku dar hooyo wuu kula daraa markii wiilkii uu ku jeclaanaya uu ku rabaya waxa aad sheegay si fiican uu kugu maqlaaya hadhow hooyo adigoo sasabaya ayaa siinaysaa cuntana ha ku wada siinin cunto oo dhan ugu bilow testiga is leedahay kan uu jecel yahay ka bilow tartiib hore u soco adigoo si aakhir aad siin doontid cuntadoo dhan inta kaamil ah aad ka siin doontid marka habkaasaa loola dhaqmaa laakiin waxaa la yidhi haddii aad tiraadid aad ku qaylisid aad tiraad saxankaadoon dhameen kama kacaysid iyo maanta aniga noo taallay waxyaabaha haddaad ku tiraadid waxay abuuraysaa negative impact abuure waxay ayaad sii complicate kasii dhigaysaa laakiin markaa cunug sidii haddaan kuu sheegay aa u sasabtid horuu macnaa laga yaaba inuu kaa aqbalo ma fahantay waxyaaba uu jecel yahay aad ku bilowdid saas aad ku wadid sasabaad aad ku wadid ayaa jidka ugu wanaagsan ee aad ku soo geli kartid inuu wax kaa cuno waad saxsan tahay fitamiinaadna waa loogu dari karaa oo appetite-ka sii furaayo inuu macnaa appetite-ka u sii furmana oo habaahe u imaado uu kaa cunayaa cuntadii uu cunayaa taasna waa ku saxsanta waa gartay dhinaca kale su'aashaas waxaa lidi ku ah caruur badan oo Soomaaliyeed ayaa mararka qaar waxaa jirta overweight ko kale inuu maasha Allah miisaankoodu ka sareeyo intii laga rabay obese marka waalidiinta oo kale waa lagu qabsadaa iskuulada oo kale sidaad ogtahay markay yar yihiin oo kale loogu qabsado
oo daalac loogu raacdo oo ma aragtay controlka ugu badan yahay ayaa sidaas oo kale iyagana loo qabsadaa sidee marka carruurtaas naftirkooda waxaa caqabada ayaa la soo gudboonaata oo walwal ayaa iyaga naftirkooda soo wajaha miisaankaasi ka sarreeya intii loogu rabay balse toora ka waran arrintaas iyada waxaan horta koogo maxaa keenay inuu cunugan cayila aan ka bilowno reasonka aan sheegno mararka qaarkood horta waxaa jiro wax genetic ah family waxaa jira iska cayilan oo genetically ah oo metabolismahooda waxooda waa dhaxal waaye qaar ka mid ahna jismigooda ayaa xogaa ka weyn kuwa kale jismigooda kala weyn yihiin dhaan Soomaalida saa u taqaanid marka waxyaabaha keeni kara inuu cunug ka cayilo ama ka farabaxsado kaas genetic waa goni waxyaabaha kale keeni kara waxa waaye markay ka maqanta exercise waxa uu cunayo iyo waxa uu bixinayo gubayo ayaa kala leeli tiran inta uu cunayo ayaa badan exercise ka ayaa yar mid kalena waa fadhiga ama maxaan ku dhahaa TV-du fadhisanaya ama PlayStation oo ciyaaraya maanta dhan wuu fadhiyaa mid raashinka aad siinaysid haddii uu asagan uu ku sii darsado cuntadan sida casriyada Soomaalida la dhihi jiray snack iyo waxaas uu ku sii darsado ama aan ku dhaho uu cabo fizzy drink inuu sii cabo sokor ka buuxdo cuntada sokorta iyo fatiga leh cunugii waxay u keenayaan cayil ay u keenayaan marka faktarada oo keeni kara oo ka qayb qaadan kara inuu cunugii uu cayilo waxaa ka mid ah marka lack of exercise macnaha inuusan exercise samaynin usan maxaan ku dhahaa oo intaasiti markuu guriga kugu soo noqdo hore TV ama television ama game especially game hadda ugu badan yihiin gameka ugu badan yihiin ay fadhiistaan ayaa keenaysa in cuntadii in la gubo loo baahnaa ciyalka markay aad u xaraka badan yihiin dhaqdhaqaaqooda waa badan yahay ma gubayo kaas ma gubayo cuntada raashinka la cunayo laftirkiisa aad siinaysid iyo waxa uu asaga cabayo banaanka markuu aad iskoolka ka tago cabitaan iyo maxaan ku dhahaa BBT-yaashan uu cabayo iyo waxyaabaha sokorta leh fara badan waxay keenayaan cunugii in macnaa uu noqdo obese culeys uu noqdo culeyskaas marka hadhow sawir oo waxay u keenaysaa ka duwan carruurta kale wuxuu la kulmaa bullying ciyaalkii inay caayaan iskoolkana moraalkiisa markaas haddana waxa ugu sii daramaya psychologically cunugii meeshii marka uu nervous markuu noqdo wuxuu ku sii kacayaaba inuu sii cuno si fiican wuxuu u cunayaa ciil haya dartiis ayuu ku sii kacayaa cuntadii ku sii kacaya ku sii xanaaqaya oo ku ciil baxaya cayilkiina wuu sii soconaya kaas marka waa runta markii qofka saas la arko waxaa laga baqayaa consequence-da oo ilan wiilka cunugga hadduu cayilan yahay waxyaabaha imaan kara diabetes hadda socdo oo carruurta ku dhaco sokoraha ku dhacayso ma fahant markaasaa kolesteroolkiisa kacaya cunug kolesterool kaca ma jirin awal lama garanayn hadda la arkay kolesterool waa taqaan dufan xididada xiraayo waaye kaas hadduu cunugii asagoo yar ku bilowdo waa khatar waa dhibaato psychological qofka cunugii wuxuu noqonaa xoogaa anxiety depression cariiri u galayaa xagga iskuulka marka uu subaxi baxaya wuxuu soo xasuusanaa carruurtii oo bullying ku samaynaysa iyo waxaas cunugii markuu muraayad isku fiiriyo oo is jeclaanaynin how can I read off kaas asagana support aad u badan u baahan yahay shukri waxaa jirto marka arrimahan oo kala dhacaan intii aan dawlad iyo faraha kula soo galin adiga ayaa lagaaga baahan yahay inaad kula carartid dhakhtar GP-ga gacan ku siinaa waxaa la sameeyaa wax multidisciplinary ah oo la dhahayo not only dhakhtarka carruurta kaliya uu gudbinayo waxa loo gudbinaa dietitian qof dietka u sax dhakhtar u saxo ayaa loo gudbinaa physiotherapist kuwa exercise u sameynaya cunuga team yes hadda aad team dhana loo gudbinaa cunuga si loogu socoliyo positionkiisa hore ama looga rido miisaanka oo dhan groupkaas oo dhan ayaa isugu tagayo pediatrician ku cabiraya cunug la cabiraya dhigiisa la controlaya marka sidaas la ilaalinaya waa lagu qoraya waxa waa inaad la shaqaysid marka waa inaad la shaqaysid waa inuu la shaqeeyaa intaanay ku soo gelin kuwan oo safeguardianka carruurta oo iskoolka ka soo raacayo ku imaanaya guriga ibaarati intaanay waxaas la dhex gelin social service balaa intaysan imaanin adiga ayaa kaga hormaraya xitaa waxay leeyihiin
caruurta bar dhakhtarka si ay u bartaan haddii kale haddana la geynin way ka baqayaan xataa markay koraan no dhakhtar waxay qaar ka mid ah way ka cabsanayaan marka waa inay familiar la noqdaan ee dhakhtarkii aad bartid in wax loo samaynayo inay fahmaan taas very important taa waay marka waxa uga hortagi kartid in gurigaaga lagu soo galo adigii oo cunuga caawisid wixiina aad ka ilaalisid cabitaanka iyo waxyaabaha qaarkood uu qaada dietka xaggiisa ah cuntooyinka qayb ayay ka qaataan cuntooyinka diyaarsanaan u malaynaa cuntooyinka guriga waa inuu ku cunaa midda kalena u diid hooyo waa inay hooyadu dhahdaa badweyn cuntooyinka quraac iyo qado iyo casho waxa cunin haddii uu wax cunayo oo kanu kusii darsado cunugii de overweight wuu noqonayaa kaloriya aad u fara badan ayuu isticmaalayaa markaasaa culeyskii miisaankii imaanaya aan raacsada dhakhaatiirta ilkaha xataa way ka deeriyaan cuntooyinka faraha badan oo iska socdo caruurta cunayaan calalinayaan ilkahooda aad iyo aad sababtoo ah afkii hadhow waxaa bilaabanaya dekeya bilaabanaya ama dhibaata uga imaanaysa xalka ilkaha ah marka ilkaha ay imaadaan waa in cunuga subaxii ugu horeysan waa inuu buraashtaa ama nadiifiyaa adigoo flora isticmaalaya flora aad u wanaagsan yahay beestiga haddana markii intuusan seexanna waa inaad tiraadid haye hooyo rumayso intaadan teginna iyagoo xoogaa xataa roon ayaa la xasuusiyaa la dhahaa sameeya lagu dhahaa si ilkahooda ay safe u ahaadaan dhakhtarka ilkaha ayaga in la isbaro because ayaga dhawaaqa oo ilkaha meesha dhakhtarka sameynaya waa wax laga cabsado so cunugii inuu la qabsadaa loo baahan yahay la tuso marka ugu horreeya waxba laguma samaynayo waa la fiirinayaa waa la sawirayaa ilkihiisay dhakhtarkii oo ilkaha samaynaya wuxuu la noqonaa familiar cunugii wuu baranayaa wuxuu u baahan yahay hadhow braces u xirayaa haddii ilkaha loo baahan yahay in loo toosi wuu toosinaya marka waxaa lagu leeyahay la tag dhakhtarka oo dentistaha bar cunuga ha barto yuusan ka cabsanin hadhow si wixiisa loogu hagaajiyo oo looguna hooyadana guriga inay uga dadaasho floriskaas isticmaasho 2 minute waaye bariskaas cunuga yariiska 6 bilood xataa oo ilkaha markaas la baxeen waa loo dhiibaa hooyada waa inay caawisaa waa inay ayagaa baxiisaynaya caruurta waxyaabaha noocaas oo kala marka hooyada inay caawisa waaye taasna wax weyn ayay taraysaa si fiican titoore su-aasha kale oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay caruuro badan ayaa tusaale ahaan iskuullada iyo xanaanadaha laga soo raacaa enerjiga ku badan kursiga kuma xasilayaan xanaanada kuma xasilayaan dhaqdhaqaaqooda badan attentionkooda ciyaartooda badan caruurahaas oo kale waalidiinta siday ula shaqayn karaan sidoo ilmahoodu xaalad normal oo kale ugu sugnaan karaa fasalka ama guriga kale arintaas okay waxaa jiro cunug horta hyperactive ah hyperactive-ka ayaa kala duwan hyperactive oo waxaa jiro oo cudur ah oo zaa'id ah cunuga way imtixaanaan jibiga u geynaysaa haddii uu zaa'id yahay ama dhaqaatiir xataa waxa ku caawinaa iskuulka xataa ku caawinaa hadduu hyperactive yahay because waxaad ku fahmaynaysaa marka la fadhiisiyo meel oo wax loo aqrinayo 15 daqiiqo cunuga ma fadhin karo ma dhaqaaqaya ma xasilnoonaya meesha waa ka move garaynaa kaas oo kale hyperactive wax la dhahayo cudur waaye ay qabaan oo xagga bareenka ka socdo waaye kaas waa lagu caawinayaa waxaa jiro dawooyin la siiyo oo hadda qofna aan qofka dhakhtar kasta ma qori karo dhakhtar gaar ah la qori karo oo xasilinayo oo dejinayo midda kale waa la ciyaarsiiyaa ayagana waxaa jiro group oo loogu talagalay oo ayagana kaa qabanayo maalin oo kale oo loo geynayo oo maxaan ku dhahaa u samaynayo exercise la cayaarayo la hadalayo hay u saxayaan cunug si uu mental u soo noqdo attentionkiisa baxa kaasoo kale waxbarashada kuma fiicnaanayo sababtoo ah second wuu baxaya macalinka intuu hadlayo ama inta wax loo sheegayo waa very active marka concentrationkiisa daa'ina ma aha waa gogo'aya ma isxakamayn karo kaas marka daawooyinaa la siiyaa tabletyo iyo waxyaabo loogu talagalay waana la kontroolaa groupkan teamkan kale oo ayagana cayaarsiinaya u hadlaya oo concentrationkiisa dib inay ugu soo celiyaan cunug ayaa jiraan oo qaabilsanba ayagana kuwaas ayaa ku wanaagsan laakiin waxaa jiro saas eegaysid ciyaal aan cudurka qabin xoogaa active ah صح hooyada ka orod badiyo oo dhaxal genetic yes dhaxal uu noqon karo waa runta uu noqon karo dhaxal marka qaar kamid ah ayaga iska degayo within time waqtiga moray si koraan
more way sii degayaan kaas with time loo baahan yahay kaas waa gartay titoore su'aal kale oo rabaa in aad isku weydiinaya waxay tahay dunidu waad aragtay smart caruurtii oo dhan smartphone iyo waxbay haystaan geemam iPad-yo TV-gii baan laga xakamay karin waqtiyo loogu talagalay oo ma jiro muraayada ayay caruurtii qaar u xiran yihiin badi aad aragtay qoysan caruur hal iyo laba kaysan ma jirto بقدرة الله مركا محاولة دين تلقون وقت انت لا ايات استيه كرتها ايا كوها waxa wanaagsan markii ay maxaan ku dhahay iPhone kan ama iPad kan ama computer ha noqdo waxa wanaagsan inta markii ay soo dhawaato in hal saac bar ka hor ay wax alla wixii oo nal ah iftiin ka soo baxaya sida telefoonkaas computerka iPad-ka inaad ka joojisid ayaa wanaagsan si ay hurdada ka halaabaysa xataa caruurtaas haddii aad iska dhaaftid inuusan sariirta la seexan uusan qaadanin iPhone-kiisa ama telefoonka intuu qaato sariirta hadduu la tago maantana waa caruur isma celin karo wuu sii wadaaya aad u qasaya cunug daalan subaxii kacayna iskoolkii kuma fiicnaanayo hoos u dhacaya marka waalidka waxaa la gudboon inay kontroolaan inuusan cunuga la seexan telefoonada la seexan in 2 saac ka hor laga jaro wax alla wixii oo iftiin ka soo baxay sida TV-ga telefoonka iPad-ka ka jooji si ay uga imaado hurdadii oo caadi uu helo marka waa in la kontroolaa caruurta taas ayaa aad u haboon oo subaxii asagoo oo aan caajis lahayn oo fiican fresh ah iskoolkiisa aadi karo ayaa u wanaagsan waatahay dictor gabagabadii ayaan soo gaarnay barnaamijka kurinshaha ee caruurta aan ugu manaaqashoonay isla markaana aan kaaga wajcelinayo waqtigaaga qaaliga ah ee aad ugu faa'iideynaysid ummadda Soomaaliyeed ee kala socota janaalkeena bashara dictor maxaad ku soo gabagabeynaysaa waalidiinta hal iyo labo tala maxaad siinaysaa waalidiinta waxaan tala siinayaa caruurta way dhib badan yihiin dadka qurbaha joogo gaar ahaan aad meeshan waa u jeedaan looma deeri karo haddii aad wadankii joogto cunuga banaanku iska aadi karaa laakiin inaad ilaalisid inaad iskoolkii geysid inay maanta oo dhan inay sabraan haddii cunugana ay wax ku arkaan in dhakhtarka la xiriiraan ee GB-ga la socodsiiyaan waa ogahay in COVID oo dhibaatooyin fara badan keena hadda dib ay aad u adag tahay in maxaan ku dhahaa dhakhtarkii sidii lagu heli lahaa laakiin cunug haddii problem ku aragtid la socodsiiya dhakhtarkiisa GB-giisa ku wareeji wax alla wixii oo xagga caafimaad ah xoog ayaa wadankan ay saaraan way ka qabanayaan way ku caawinayaan taas hala socda midda kalena u sabra caruurta maxaan ku dhahaa intay guriga joogaan ilaaliya telefonaadkii sidii hadda aan sheegayno oo kale ka qaada intii 2 saac ka hor intaysan sariirta aadin kuwa yaryar caadi u sheegay inay rumaystaan maxaan ku dhahaa brushka isticmaalaan in macnaha hooyada aysan qalbi jabin way daalaysaa hooyada oo qof bini'aadan ah waxyaabaha oo dhibaato keeni kara psychological in laga ilaaliyo hadallada oo waalidku ku hadlaayana labada waalid iyagana inaysan hortooda isku dagaalin waalidkii ay ka ilaaliyaan caruurta trauma gaarayo macnaha inay ayagana ay ilaaliyaan ayaa wanaagsan wax alla wixii dhib u keeni karana ay ka ilaaliyaan caruurta waxaanu ka tagnay shilalka dhac waalidiin ayaa waxaa jirta shilal ay qarsadeen caruurta dhibaato ka soo gaaray qaarkoodna dhacay xataa in laga qaato arrintaasi hal iyo laba Dictor shilalka hadduu accidental yahay I don't think so ma malaynayo in laga qaadanayo waxa la diidaa shilka hadduu soo noqonayo waxa lagu malaynayaa hooyo aan awood u lahayn oo aan karti u lahayn inay caruurteeda ka adkaato ama ka celiso qatarada ay ka celiso ayaa laga baqayaa marka taas darteed ayaa waxa keeni karto in caruurta dadkan qurban qaar kamid ah in laga qaato cudur waxa keenay kaas ina aad u taxadirtid ayaa aad u wanaagsan iyo kugu soo noqonin haddii wax gaaraan si cala tool ah uga intervention u samee uga horimaw la xiriir dhaqaatiirta caruurta inta ku dhalaysa ayaga wax ma qariyaan iskoolkii tagayaan saana ay u dhacday dhahayaan hallo wixii banaanka soo dhacay intaanaysan ka hormarin caruurta adiga ka hormar cunugii waxaan ay u gaaradhe taas ayaa aad u wanaagsan adiga dambi kuma lihid wuu dhacaya way og yihiin laakiin markuu dhowr mar dhaca oo la qariyo adigana aad adiga ka waxaa leedahay qari
wixiina hadhow banaanka kusoo dhacayaan dhowr mar ay dhaceen markii la dhahaa taas watan dembiga imaanayo si fiican marka waalidka hadday de wax dhacaan iyo cabsanin horey lagaagama qaadanayo inaa waalid daacad tahay hore wixii ka sheegay accident wuu dhacaa waa la og yahay ma fahantay laakiin qarinta dembi ayay ku noqonaysaa waalidiinta dembi ayay ku noqonaysaa laakiin laguma qoraayo faras hal mar oo dhacay oo kale laguma qoraayo carruur oo dhan mar walba waxay ku dhacaan maxaan ku dhaha accident caadi u dhacaa ma fahantay cunugu iskoolka ka soo baxayo iskuulku ka dhacaa xanaanadii ka dhaca meel walba dhibaato meel walbay ka dhacdaa iskuulka hadduu ku dhaca adi laguma haysto adi laguma haysto iskuulka laftirkiisa mas-uulka ah inay dabaracaan oo maxaan ku dhahaa ay kuu sheegaan waalidkiyaa tahay lagula socodsiiyo hadduu isbitaal u baahan yahay laftirkooda inay intervention ku sameeyaan ay maxaan ku dhahaa ay raacaan iskuullada laftirkooda dadka jooga mas-uuliyiin waaye oo ciyaalka indhaha ku haya aad iyo aad ayaad u mahadsantahay ditore mar kale ditor abshir cumar oo ahaa dhakhtarka howlgala wadankan UK magaalada London ayuu ahaa isla markaana barnaamij qurux badan aan ku faaqidaynay hanaanka ugu wanaagsan ee korriinta ubadka anigoo Shukri Xasan ayaa idin socodsiinay Shukri Sharaf kanaalna waad kala socoteen intaan dib dambe ugu kulmi doono waxaan idin leenahay aniga ditorkaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور وما سنت هبي ونكسن يا ضامن ولك